الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد walaalayaal waxaynu ku sugannahay xilli aynu ku jirno duruuf adag oo waxa weeye abaara haddii ay tahay sicir barar oo dad badan laga yaabo culays dhaqaale inuu jiro oo culays badan iyo duruuf kala duwan dad badan ay haysato mar walbana dadku waa qeybsan yihin dad gacanta wax ku haya iyo dad baahan meel walba waa laga helaya mujtamac kasta waa laga helaya waxaan maanta soo qaatay qiso iyo mowqif iyo dhacdo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xilligiisi dhacday soona noqnoqotay oo ku saabsan nabiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo waayaha nolosha imaamu muslim saxiixiisa wuxuu ku soo warinayaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa maalin gurigiisa wuxuu ka soo baxay xilli aan laga soo bixin xilliga gadiidka ee dadku ay guryahooda harsanayaan ee aan la socsocon banaankana aan loo soo bixin ayuu nabigu soo baxay calayhi الsalaatu wasalaam oo dunidu ay dhaag tahay waxaa ku soo baxay abi bakr iyo cumar labadiisii saaxiib ay aadka isugu dhowaayeen ummadda nebi maxamedna marka nebi maxamed laga yimaado ugu fadliga badan dabadiina ummadda u talinayay ayaa nabiga ku soo baxay calayhi الsalaatu wasalaam nabigu inta uu la yaabay buu ihi maxaa idin soo saaray saacaddan iyo xilligan la joogo waayo xilli la caadaystay ma aha waxay yidhaahdeen wallaahi gaajo mooyaane wax kale umaanaan soo bixin dabcan rag sabir badan bay ahaayeen way cibaadaysanayeen ilaahay bay xusayeen gaajooyin badan bay adkaysanayeen laakiin markay badato ee qofku uu kala garan waayo wuxuu ku xusaya alle subxaanahu wa tacaala xaaladda noocaas oo kale inuu risiqa alla doonto oo sacyi iyo dhaqdhaqaaq uu sameeyo gaajada uu iskaga saaro waa mid waxa weeye loo baahan yahay markay taa nabiga u sheegaan calayhi الsalaatu wasalaam nabigu wuxuu ugu dhaartay waxaa iyaga soo saaray isagana inay soo saartay oo gaajo ah waa nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo ilaahay uu ugu jeclaa basharka ugu jeclaa oo ambiyada dhammaantood alla subxaanahu wa tacaala uu ka xushay oo heli lahaa nololta ugu wanaagsan ilaahay inuu ku nooleeyo heli lahaa waayo waxaa la kala dooransiiyey nebi boqora inuu noqdo iyo inuu noqdo nebi addoona baa la kala dooransiiyey wuxuu doortay inuu noqdo nebi addoona oo ilaahay addoon u ah baahida iyo gaajada nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ikhtiyaar buu u doortay miduu ku khasbanaa ma yahay nololta ugu wanaagsan buu heli lahaa nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu doonay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam inuu waxa weeye saxaabadii kaxeeya abi bakr iyo cumar wuxuu uhi waxaynu tegaynaa abilhaytham ibni tayahaan gurigiisa mujtamac kastaana dad ladan buu leeyahay oo dadka laga garanayo o laga tilmaamayo gacantana wax ku haya marka lasoo martiyana dadka wax siinayo wax laga helayo kuma fillo keliya qofku inuu hayo ee waa inay wax ka go-ayaan nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaansaday abulhaytham ibnu tayahaan saxaabiga la yidhaahdo gurigiisa in la aado wuxuu lahaa beeruu lahaa timir badanna waa u baxday
ari badan iyo xoolo noolo badanna waa lahaa nabigu waa sahansaday deeqsinimadiisa wayuhiruuna calىa anfusihim walow kaana bihim khasaasa inuu door bidayo wax isdhaafinayo ayuu nabigu doortay calayhi الsalaatu wasalaam ta labaad inuu gacanta wax ku hayo gurigiisi baa la yimi xaaskiisi baa aragtay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ya abi bakr ya cumar waxay fahantay in marti loo yahay caadadu waxay ahayd nin carbeed oo gurigiisa ka maqan xitaa islaanta inaan la salaamin iska daa inta guriga la galo la fadhiisto inaan xitaa asalaamu calaykum la odhan baa caado ah hinaasaha ay leeyihiin ilaa hadda lafteeda waa taanu muddo ku noolayn ninkaa dadka isugu jeceshihiin suuqa haddaa iskaga soo horbaxdaan iyadoo islaantu ay la socoto oo aad ku tiraahdo asalaamu calaykum kiis baad ku jirtaa wuxuu u arkayaa karaamadiisa inaad wax yeeshay waa libaax gooshiisii wato haddii waxa weeye aada salaanto macno kalea meesha ka soo baxaya waad ku coloobeysaan haddaad aragto islaantiiya la socotay iska daa inaad salaantay waa inaad waddada uga baydhaa ama gidaarka aada jiidhaa intuu islaantiisa la gudbayo gabadhani waxay ahayd gabadh ku kalsoon nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waxay ahayd gabadh ku kalsoon odaygeeda hadday nabiga fadhiisisa calayhi الsalaatu wasalaam inaanu ku canaananayn way fadhiisisa waxay tihi ahlan wa marxaban soo dhowaada nabiga iyo labadiisii saaxiib bay fadhiisisa dabeedna waxaa yimi abulhaytham ninkii guriga lahaa halkaa markuu ka arkay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayuu codka kor u qaaday allahu akbar alxamdu lilah ilaahay baa wax walba ka weyn ilaahay baa mahad leh maanta marti ka qiimo badan oo gurigayga soo gashay ma jirta buu yihi wuxuu ku soo orday nabiga calayhi الsalaatu wasalaam dabeedna laabta u saaray soo dhaweyn halkii ugu dambeysay buu sameeyey isla markiiba intuu dhaqaaqay buu soo qaaday timir u soo qaaday welibana noocyadeedii kala duwanayd uu usoo kala duway laamo sidoodiiya oo laalaado buuxo rucuba ayuu sidooda geedka uga soo gooyo nabiga u keena calayhi الsalaatu wasalaam nabigu waxa uu ku yihi laantoo dhan maxaad usoo goysay dhowr xaba maad nooga soo qaadid laantana halkeeda aada u daysid wuxuu hi waxaan doonayaa inaad kala xulataan oo kaad doonaysaan aada cuntaan intaa kuma joogina mindidii buu qaatay nabigu waa u yeedhay calayhi الsalaatu wasalaam waxau ihi kolleyba haddaad wax gowracayso ta irmaan iska daa ee caanaha laga lisanayo waa xikmadda iyo waayo aragnimada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo naxariistiisa oo uu doonaya kuwa irmaan ee caruurta loo lisaya inaan la taaban neefkiibuu usoo qalay wuxuu u keenay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam iyagoo timirtii cunaya biyo macaanna waa u keenay neefkiiyo uu u bisleeyeyna waa u keenay nebigii iyo abi bakr iyo cumar waa cuneen ilaa ay ka dhargeen way cabbeen ilaa ay cokonaadeen dabeedna nabigu calayhi الsalaatu wasalaam mowqifka intaa kuma dhaafin wuxuu xasuusiyey xaaladda ay hadda ku sugnaayeen iyo halka xaalkoodu ku dambeeyey buu nabigu xasuusiyey calayhi الsalaatu wasalaam waxau ihi nabigu wallah ilaahay baan ku dhaartee waa nicmooyinka la isweydiinaya waxaanaad cunteen daqiiqada ka hor guryihiina gaajaad uga soo baxdeen haddana xaalkiina waa ogtihiin halka uu maraya sidaad u dharagsantihiin iyo waxaad cunteen biyo qabow bay cabbeen oo macaan timir kala duwan bay cuneen hilib iyo raashin bay cuneen waa wixii ugu wanaagsanaaye markaa la cunayay xadiidkan waxaynu isu dul taagaynaa dhowr mowqif baynu ka qaadanaynaa mowqifka koowaad waxa uu yahay dadka waxa weeye duruuftu ku adkaatay ee xaaladuhu ay cusleeyeen walow aan hubo ma filayo aan hubo maanta qof waagu intuu u bariyey uu gabalku u dhacay isagoo gaajoonaya aan u malaynayo inaanay jirin
ama ay yar tahay markuu ugu liita hal waqti nus kiilo daqiiqa inta uu qooshto xoogaa laxooxa ka samaysto xoogaa bigaysana uu ku iidaanto ama bariis cad oo biyo lagu kariyo uu cuno wax uu dhuuntaa mariyo waxa weeye 24 saacadood qof gaajo u qatan waxa weeye ay aad iyo aad u yartaa xilligan la joogo walaw hanba xaafadaha weydiisto cuntada ka soo hadhay ama hudheeladu ay wax u tuuraan aad bay isaga yar tahay duruuf adagi waa jirtaa laakiin tii xilligaa joogtay maanta waxa weeye xaalad ka duwan baa lagu sugan yahay laakiin maca daalik waa la helayaa dad gaajadu ay taabanayso inay waxa weeye weheshi ka dhigtaan nabiga calayhi salaatu wasalaam oo gaajada iyo duruufta adag ee aanay kula weynaan oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo helaya nololta ugu wanaagsan ayuu haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam doortay nolol caadiya maalinna inuu wax helo maalinna inuu wax waayo maalin inuu dhargo maalinna inuu gaajoodo caaisha radia allahu tacaala canha waxay leedahay saxaabo kalena ay leeyihiin 2 bilood baa dhammaanayay oo guryaha nabiga calayhi salaatu wasalaam ee 9 aan dab lagu shiday dabeedna la weydiinaya maxaa ku noolaydeen ay odhanaysay biyo iyo timir baanu ku noolayn wax kale kumaanan noolayn caaisha radia allahu tacaala canha waxay leedahay 2 maalmood oo isxiga ama hal maalin 2 waqti nabigu calayhi salaatu wasalaam kimis ama hilib midna kama dhargin nabigu calayhi salaatu wasalaam hal waqti hadduu wax helo taasaa ku filnayd nabiga calayhi salaatu wasalaam xaalka maanta aynu ku sugannahayna waynu ognahay dad badani waa quraacanaya barqadan cashaa caana geelaa baa la cabaya waa la qadaynaya waa la casariyeynaya saambuusaalihii iyo quraacii iyo keegii baa udhaxeeya waxa weeye waa la cashaynaya waxaa laga yaaba waxyaabo kalena dadka qaar inay ku darsadaan haddii 2 waqti la cuno oo keliya ama hal waqti lagu soo ururiyo waxaa la odhanayaa dadka baktiga u xalaala baa la odhanaya waana noloshii caadiga ahayd ee xilligaa lagu noolaa gelinka horena marbaa wax la cunaya waxaa laga yaabaa inay timir tahay gelinka dambena marbaa wax la cunaya waxaa laga yaabaa inay timir tahay oo wax kale aan wax dab la saaraa aanay jirin dadka noocaasa tasliya ugu sugan adduunyadu inaanay sidaa kuugu weynaan oo waxa weeye haddii aad wax heshana falilaahi alxamd ilaah inaad uga mahad celiso haddii xaaladdu ay kugu adkaatana inaad ogaato in lagugu imtixaamayo oo nebi maxamed iyo dadka ugu khayrka badnaa inay soo mareen noloshaas mowqifkanoo keliya ma aha abu طalxa radia allahu tacaala canh umu sulaym buu u tegayey markuu nabiga la tukaday calayhi salaatu wasalaam salaadii nabigu uu tujinaya salaad duhur bay ahayd iyo salaadaha la midka ah ayuu wuxuu ka dareemay codkii nabiga allahu akbar ayuu wuxuu ka dareemay cod daciif oo gaajoonaya dabeedna gurigiisa markuu ku laabtay buu ihi nabiga codkiisoo daciifaan maqlay gaajaan ka dhadhansanaya codkiis waxaan doonayaa cunto inaad u samayso nin dawaarla abu shucayb la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay xaaskiisa intuu u tago khudbaddii nabigaan dhegaysanaya calayhi salaatu wasalaam wejigiisa gaajaa ka muuqatee cunto u samee dabeedna cuntay u samaynaysa mawaaqif kala duwan oo aan la soo koobayn ayaa nebigu isagoo aan hadal gurigiisana ka soo bixin salaada uu tujinaya khudbadda uu khudbadaynaya gaajada laga dareemayay isagoo heli lahaa wuxuu doonaa inuu cuno ilaahay hadduu weydiisto dabeedna saxaabadiina way martigelinayeen masalada labaad waxa ay tahay dadka ilaahay uu wax siiyey inay garab istaagaan dadka masaakiinta ah abulhaytham radia allahu tacaala canh markii ay soo booqdeen isaga iyo islaantiisuba waa soo dhoweeyeen xoolihii bay u gowraceen wixii ay hayeen bay siiyeen oo si wanaagsan bay u soo dhoweeyeen qofka wax la siiya haddii masaakiinta u timaadana
waajibka la gudboon waa ka u gutay abulhaytham radia allahu tacaala canh in waxa weeye dadka dhibaataysan ama gaajaysan ama ku soo martiya inaad waajibkaaga ka gudata ayaa kuu yeela waxyaabaha muhimka aynu ka faa'iidaysanayna waxaa ka mid a qisadan aynu ka faa'iidaysanayno in bulshada lagu tarbiyadeeyo inay wax wada qabsadaan oo waxa weeye la iskaashado oo la isu naxariisto oo waxa weeye qof waliba kaalintiisa uu qaato xaaskii abulhaytham waxay heli lahayd inay tiraahdo odaygii waa maqan yahay inطaliquu iska socda gooruu iman doona ma ogi inay sarfiso o ay celiso way heli lahayd laakiin waxay ka howlgashay inaanay ka laaban dadaal badan bay samaysay mawaaqifta aynu ka qaadanaynaa aada iyo aad bay u badan tahay waxaan ugu talagalay inaynu qof waliba xaaladda uu ku sugan yahay cidda u munaasibkaa inuu ku daydo ka ladani abulhaytham uu ku daydo ka gaajooda nabiga uu ku daydo calayhi الsalaatu wasalaam iyo abi bakr iyo cumar ceeb maaha gaajada waxaad ku zuulinaysa inaad raadiso nabigu waa soo baxay abi bakr waa soo baxay cumar waa soo baxay waxay u soo baxeen gaajada inay iska biyaan laakiin inay maskaxdaadu la noolaato ama meel xalaali aanay ku jirin aad ka raadiso xaaraantii aad raadiso ta noocaasa baa la diidan yahay alaa wasaluu wasalimuu calى nabiyikum اlamiin aladi amarakum اllah bالصalaaةi wالsalaam عalayhi bqowlihi fi kitaabihi اlmubiin in اllaha وmalaaئikatahu yusaluuna عalى الnabiy ya ayuha اladiina aamanuu saluu عalayhi wslimuu tasliima allahuma صل عalى muxamadi وali muxamed kama صalayta عalى ali ibrahim wbarik عalى muxamadi وali muxamed kama baarakta عalى ali ibrahim inaka xamiid majid allahuma aعز الإسlاam والmuslimiin allahuma اdfac الdura والbalaa